والله waxa iga farxad badan tahay malahan kursigan siyaasadeed iyo dhibka igu gaaray waxaas oo dhan waxba igama muuqdaan ilaa dadkii shalay idinka waxa tihiin igu qalqaalinay saaxiibaday anoo shaqooyin kala joogo igu garabsiiyay inaan noqdo ila jeclaaday baa tihiin inta wanaaga iyo waxa igu tilmaamteen qof kasta ma ihi waxa rabaa ilaahay inuu iga dhigo meeshaas ay meel ka sareyso inta ay la jeceshihiin ilaahay iga dhigo midda kaleeto aniga wixii soo gaaray waa wax idinka dhan idin soo gaaray waayo magaciina iyo mansabkiina baa ku joogay meeshan waxa laga yaabaa maanta in muuqaalkayga wax yar uu iska bedelay igu taqaaneen laakiin qalbigayga ma isbedelin alxamdulillah sideedii ay idinahay markii degmada ay al-shabaabka qarxiyeen waxa ku iri guriyahaas jajabiseen anaga wili waa noolna waana shaqeynona haddana waxa leeyahay maqaarkaygii wax yar yar oo lafa iyo waxa baa gaarsiiseen laakiin qalbigaygii intii far ayga nooshahay insha Allah sidiisii u ahaan doona waana ku wada dagaalami doona insha Allah dhamaanteen isku duuban aan wadanka u duceeyno wallahi inaana daawo ku caafimaadina waxa ku caafimaad ducadiina iyo garab istaagiina wax la ii qabanayo way iska yareed shaqada la ii qabanayay si fiican la iiga taxadiray dad aad noo jecel u tagay oo ilaahay khayr ha siiye xitaa mid kamid ah wuxuu igu yiraahday Zainab wadankii ku laabana markaa dhahay wuxuu dhahay intuu naxay wuxuu yiri wadankii sidan ku soo noqotaa inta shaqo kaaga raadinayna ee iska joog ka saxa ku yiri qof kasta oo wadankeena dhibaa ka socdo uu soo kobcaaya hadda anaga dhan wada cararno maxaa la yiraahdaa wax u shaqeynaayo qaranka malahan wax qofka dambe iga dambeeyo oo Zainabyada kale iyo caashooyinka kale caliyada kale dhalanay meel ay soo maraan ina u diyaarino waa anay wili ma arkin gabadheeda wili ma arkin maanta oo dhan waxa ku faraxsanahay dadkiina idinka ina idin la joogo oo garab ii aheedeen shalay ii soo duceynayseen ducadiina wax badan ku noqday qof walba oo garab qabtay oo faataxa ii soo maray ama ila murugooday khayr Allah siiyo ducadiina wax badan ay qabatay marna kama quusan doono siyaasadan kala xagga aska dhigno laakiin aniga waxa waaye meesha aan joogo waxa joogan ummad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah kuwaas shaqo iga baahan waajib waaye isaaran oo ilaahay maalintii haddaan dhiman lahaay ugu xisaabtami lahaay waa iska joogo waxba ma noqon lahayn laakiin waa ugu xisaabtami lahaa qabrigaas marka galo walaali adaa dadkaas hor fadhisay maxaa u qabatay marka inta qaban karo ilaahay hay la garab galo idinkana wiligiin boo ay la garab galeyseen insha Allah insha Allah aan iswada garabsano Cabdinuur uu ku mahadsan yahay agaasima Liibaan dhamaan iyo inta kale inteenan waxa waaye howlo kale inay ku jirnaa laga yaabaa laakiin kadisa ay iga dhigteen mar kale waxa idin leeyahay intii soo abaabushay sida ii jeceshiin Allah idin jeclaado